السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوري وولال. طبعا waxaad jeceshahay inaad iska diiwaan geliso website-ka warshadaha si aad u fiiriso listiga warshadaha ku jira, koorsooyinka ku jira sida kuwa Alibaba iyo kuwa kala dhamaan aad ku arki doonto gudaha. fadlan videoga wuxuu ku saabsan yahay kaliya sida EVC Plus la isugu diiwaan geliyo ama sahal iyo zaad kuwaas waa ku bixin kartaa. Haddaba sida ugu fudud ayaan tusayaa marka hore. Okay, website-ka warshadaha ayaa hadda joogtaa. marka kow waxaad tagaysaa meesha ay ku qoran tahay register, waxaad taabanaysaa kadib sign up. markaad taabato waayo qof cusub ayaa tahay, waxaa kuu soo baxayo saddexdan qaybood ama option ama noocyo. tan ugu hore waa bil walbo ayaad mataqaanaa 9.99 bixinaysaa. tanna waa 3 bilood, tanna waa sanad. marka midka aad doontaa dooran kartaa. tusaale hadda waxaan usoo qaadanayaa bisha. marka meesha hoos ay ku qoran tahay get started ayaa taabanaysaa. waxaa kuu soo baxaya formkan, waxaa ku qoraysaa magacaada hore, magaca dambe iyo email address-kaaga ku qoraysaa. intaa markaa ku qorto waxaad leedahay create account markaa ku dhufato waxaa kuu soo baxaya pagekan markuu kuu soo baxo saddex option halkan kaaga muuqda. mid waa car, mid waa EVC, midna waa M-Pesa. ka EVC-ga ayaa taabanaysaa. halkan waxaa kuu dooran hal bil inaad dooratay. halkan mobile-kaada ku qoraysaa. intana password aad account-kaada ku gasho ayaa sameysanaysaa. password-kan adigu khaas ku yahay. mar walba aad imaato warshadaha.com waxaa kusoo gelaysaa email-kaaga iyo password-kaaga. halkan hoose waxaa kaaga muuqda qaabka aad lacagta u dirayso. waxaa ku qoran macaamilka sharafta leh, fadlan ku dir lacagta Cabdiqaadir Faarax, Cabdiqaadir Waayarka, Muqdisho, xafiiska Muqdisho jooga. EVC sahal iyo zaad waa ku bixin kartaa. lambarka lacagta ku dirayso waa taas, waa +25261314836. halkaas kaaga muuqda lacagta totalka aad diraysana waa intaas. haddaba su-aalo markaa qabto waxaad nagala soo xiriiri kartaa isla lambarka Muqdisho ama lambarkeena USA ee mataqaanaa WhatsApp aad nagu soo gaari kartaa, ama caadi aad noo soo wici karto, ama email-keena. saddexdaas waa nagala soo xiriiri kartaa. haddaba marka aad halkan joogto lambarkan meel ku qoro si aad lacagta ugu dirto. lambarkan markaa meel ku qorato wax walba waa kuu diyaar. submit ayaa taabanaysaa. markaa submit daawato isla lambarka halkan uu kaaga soo baxayaa. haddaba hadda shaqadaada waxay tahay lambarkaas ayaa lacagta ku tuuraysaa. kadibna qofka lambarkaas ayaad fariin u qoraysaa, ama WhatsApp u dir ama text message caadi u dir. waxaad tidhahdaa walaal waa isdiiwaan geliyey, email-kayga waa kana, lacagtana waa soo diray. intaa kaliya u qoraysaa. kadibna saacada gudahooda isaga kula soo xiriirayo oo maaragtay kuu soo deynayo account-kaada. markuu account-kaada kuu soo daayo oo fariin uu kuu soo diro uu ku dhaho account-kaada waa active walaal uu ku dhaho, kadib waxaad sameynaysaa website-ka kusoo laabanaysaa. dabcan email-a kuusoo dhacayo oo ku dhahayo account-kaada waa active. asagana waxaad kusoo laabanaysaa account-kaadii. halkan sign in-kaa tegaysaa. markaa sign in-ka tagto halkaas ayaad gelinaysaa email-kaagii iyo password-kaagii. hadda aniga markaan email-kayga geliyo iyo password-kii muxuu dhahayaa your plan is approval is pending. weli lama approve garin account-kaada ayuu leeyahay. marka saas ayaan ku tusaya. markii aad lacagta bixiso account-kaada waa lasoo approve garanayaa, kadibna wuu kuu soo gelayaa insha Allah. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.